maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc aan rajaynaya inaad wax badan ka faa'iido cuntooyinka kor u qaada caafimaadka neerfayaasha iyo maskaxda. qaraha waxaa ku jira maadooyin muhiim u ah sida omega 3 fatty acid, antioxidants iyo vitamin E. maadooyinkan waxay ka caawinayaan dhimista xanuunada neerfayaasha iyo kor u qaadista xusuusta. omega 3 fatty acid waxay si gaar ah muhiim ugu yihiin caafimaadka maskaxda, sidoo kalena waxay ka hortagaan cilladaha xusuusta iyo hoos u dhaca maskaxda. brown rice, bariiska bunniga, waa isha ugu weyn ee laga helo karbohaydraytyada caafimaadka leh, gaar ahaan kuwa loo yaqaano complex carbs. karbohaydraytyadani waxay si tartiib leh ugu sii daayaan maskaxda tamar, taasoo ka hortagta daalka iyo xusuus xumada. sidoo kale waxaa ku jira maadooyin muhiim u ah kor u qaadida shaqada neerfayaasha. spinach ama koostada waxaa ku jira folate iyo magnesium. labadan maado waxay muhiim u yihiin shaqada neerfayaasha iyo caafimaadka maskaxda. folate waxay ka caawinaysaa soo saarista neurotransmitter sida serotonin, oo ah maado saameyn ku leh xaaladda niyadda iyo feejignaanta maskaxda. avocadada waxaa ku jira potassium iyo monounsaturated fatties, kuwaas oo muhiim u ah caafimaadka neerfayaasha maskaxda. avocadada waxay sidoo kale kaa caawinaysaa hagaajinta wareegga dhiigga, taasoo muhiim u ah qaadashada oksijiin maskaxda. kalluunka, gaar ahaan nooca loo yaqaano fatty fish ama kalluunka cadiinta leh, waxaa ku jira omega 3 fatty acid, taas oo sidoo kalena aada ugu fiican caafimaadka maskaxda iyo neerfayaasha. omega 3 fatty acid waxay ka caawinaysaa hagaajinta xiriirka u dhexeeya unugyada maskaxda, sidoo kalena waxay horumarinaysaa xusuusta iyo feejignaanta qofka. dark chocolate, shukulaatada madow, boqolkiiba 70 waxaa la sheegaa shukulaatada madow inay ka kooban tahay maadada cacao. maadadani waxay kor u qaadaa caafimaadka maskaxda iyadoo ay ku jiraan laba maado sida flavonoid iyo magnesium. flavonoidku waxay gacan ka geysataa kordhinta wareegga dhiigga ee maskaxda, sidoo kale magnesium waxay taageertaa xusuusta iyo shaqada neerfayaasha. qamadiga ama waxaa loo yaqaano oats waa isha ugu weyn ee laga helo karbohaydraytyada adag sida complex carbohydrates iyo vitamin B, oo labaduba muhiim u ah caafimaadka maskaxda. vitamin B wuxuu kaa caawinayaa hirgelinta neurotransmitterka iyo nidaamka neerfayaasha, isagoo kor u qaadaya niyadda, feejignaanta iyo xusuusta qofka. cuntooyinkan waxay leeyihiin nafaqooyin badan oo muhiim u ah caafimaadka neerfayaasha maskaxda, waxaana ku jira maadooyin muhiim u ah shaqada maskaxda, xusuusta iyo ilaalinta caafimaadka guud ee neerfayaasha. like sar muuqaalka si saaxiibo badan uu gaaro.